kusimaha ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ahna ra'iisul wasaar ku-xigeenka Senator Saalax Axmed Jaamac wasiirada saaxiibada ah ee dowladda federaalka wasiirada isteediyada ka yimid marti sharafta kala duwan ee hay'adaha UN-ka iyo safaaradaha dhammaan aqoonyahanka iyo howlwadeennada wasaaradaha cagaaran waxaan anagu naqaanaa wasaaradayada wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda biyaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda magac waa bedelaynaa hadda waxaan u bixinaynaa green ministries mudan ra'iisul wasaare oo aan noo siin doontaa waan u malaynaya insha allah dhammaantiin subax wanaagsan sharaf weyn ayay u tahay wasaaradda isbeddelka cimilada iyo deegaanka ee Soomaaliya furitaanka ama lawjgaraynta mashruucan maanta ee Ugbaad isbeddelka cimilada ee Soomaaliya ma ahan dhibka uu nagu hayo wax aanu sugayno oo wax soo socda maahan waa dhibaato Soomaaliya ay dhex fadhiso ayada oo Soomaaliya qayb ka ahayn dhibaatada adduunku cimilada u geysto laakiin ay tahay muxuu ahaa waxa lagu oran jiray afafkii muxuu qalaad victims ay u tahay dhibkaas asaga ah cimilada isbeddelkeeda Soomaaliya wuxuu nagu keenay dhib kasta oo aadanuhu la kulmi karo wuxuu wax u dhimay amnigayagii meelaha mararka qaarkood aan wax ka fiirino oo argagixisada iyo wax la mid ah haddii dadka iyagu heli lahaa nolol iyo muxuu ahaa waxa ay u baahnaayeen noloshooda iyo horumarintooda kuma biireen wiilashayadu iyo gabdhaha iyagu ururada argagixisada waxay keentay dagaal joogto ah oo ummadayadu ay ku dagaalamaan badka iyo biyaha yarka ah ee haray waxay noo keentay haddaan soo koobo dhibaato kasta oo aadana la kulmi karo caafimaad iyo nolol iyo horumar intaba cimilada isbeddelkeedu oo sidaan sheegay aan anagu qayb ka ahayn cidda wasaqeynaysa maanta waxaan u fadhinaa furitaanka mashruuca Ugbaad mashruucaasoo muhiim u ah in caqabadahaas wax ka qabadkooda uu furo u noqdo bilowna ah hase yeeshee marka loo eego anagu aad iyo aad ugu mahadcelinayna sanduuqa cagaaran ee caalamka kaalmadaas ay Soomaaliya u fidiyeen haddana kaalmada ayna siiyeen oo deeqsinimo ah iyo dhibka aanu qabno kaalmadaasu waa dhibic biyo ah oo bad lagu dhex tuuray waxaan rajaynaynaa annagoo sida ugu wanaagsan ugu hufan ugu waxtarsan uga faa'iideysan doona mashaariicdaas wasaaradda cimilada iyo wasaaradda isbeddelka cimilada iyo deegaankuna oo pen holderkii ah ama coordinatorka u ah wasaaradaha aan sheegay iyo inta kale oo dhammaan muxuu ahaa ay tahay in ay wax ka helaan ama ku shaqeeyaan sanaadiiqda kala duwan ee caalamiga ah ee isbeddelka cimilada laga taakuleeyo waxaan muxuu ahaa u sheegaynaa dhammaan deeq-bixiyaasha inaanu daba taagnaan doono warbixin doono muxuu ahaa transparency iyo shafaafad cadna ay ka heli doonaan dhammaan lacagahaas ay Soomaaliya ugu taageerayaan in dhibka cimilada uu u geystay wax lagala qabto sidii wasiirada iga horeeyay ay sheegeen waxaa nala jooga kusimaha ra'iisul wasaaraha asagana codkii xukuumadda iyo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ku hadli doona noona soo gudbin doona hase yeeshee waxaan hadalkii ku soo koobayaa mashruucaanu inuu yahay mid waxtar u leh tijaabana nagu ah waxaanan u sheegaynaa saaxiibada caalamka in aanu ku dadaali doono tijaabadaas inaan ku guuleysano aad iyo aad u mahadsantiin intaas kadibna iga ogolaada inaad ila soo dhaweysaan ra'iisul wasaaraha kusimaha dalka ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka mudane Senator